wuxuu inaga doonaya innaka marka horeysa waa maxay inaan maaragtaan amarkiisa aan qaadano sidii inaga doonaya waa inuu naga helaa adduunyadana meel baahida bini aadamka lagu dhamaystiray ma aha adduunyadan waa caalam ujeedo keliya bini aadamka loo keenay ujeedadu waa maxay dadku inay adduunyada kala tagaan iimaan iyo camal saalix halkan raaxa adduunyada ma taalo adduunyada raaxa hadday taallana dadka ilaahay jeclaa buu raaxada siin lahaa low kaana liibni aadama waadiyan min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan walan yamlaa faahu ila turaab wayatuuba allahu calaa man taaba nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam adduunyada raaxa ma taalo meel baahida bini aadamku ay ku dhammaystirmaysana ilaahay adduunyada kama dhiginba kulligeen nin walba baahi nambaraa ka qaldan ninay nambarro u saxsayin caalamka ma jiro gaal iyo islaam caddaan iyo madow ka adduunyada ugu dhaqaalo badan ilaa ka adduunyada ugu hooseeya dhammaan way baahan yihiin baahidooduna adduunyada kuma dhammaystirmayso nebigaa sheegoo yidhi inaadan haddii la siiyo tog dahaboo socdo qulqulaaya kun labaad buu jeclaan buu rasuulku yidhi meel baahida bini aadamku ay ku joogsatay adduunyada lagama dhigin bal adduunyada waxaa loogu talagalay meeshii laga sahay qaadanaya sahayda la qaadan waa maxay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahayda la qaadanaya waa la kayaab weeyaan alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi raxiil buu imaam cali ku fasiray taqwada ilaaha jaliilkaoo laga cabsado qur-aanka oo lagu dhaqmo qanaaco oo la yeesho qofku arsaaqadda intii eebba ugu talagala uu ku qanco maalinka dadku ay u guuri doonaan loo intiqaalayana waa inuu addoonka mu'minku u diyaar garoobo weeyaan adduunkan waa meel laga sahay qaadanayo weeyaan sahayda la qaadan waa maxay sahayda la qaadan waa iimaan iyo alla kayaab weeyaan wax kale maaha iimaan baa la qaadanaya iyo alla kayaab marka insaankan waxaa adduunyada loo keenay bini aadamka laga dooni waa inuu fahmo waxa ilaahay uu ku siiyey ee nicmadoo dhan wuxuu ugu talagalay inaad u adeegsato inaad ku gaadho macrifada ilaahay taasaa adduunyada lagu keenay laakiin nasiib darro ayaan darro dadku maanta dariiqii loogu talagalay intay ka weecdaan kulligeen waxaan badanaa dadku maanta waxay ku dadaalayaan ilaa man raxima rabbi siday makhluuqa u garan lahaayeen iyo siday makhluuqa uga faa'iidaysan lahaayeen nebiyaduna calayhim asalaam waxay la yimaadeen siday bini aadamku khaaliqa u garan lahaayeen khasaa'inta khaaliqana ay uga faa'iidaysan lahaayeen taasay nebiyadu la yimaadeen nebi ilaahay ma soo saarin oo qur-aanku ma sheegin dadka maaragtaane u sheegay ama u tilmaamay sida arrada looga faa'iidaystee bal nebi walba wuxuu la yimiday siday dadku ay ilaahay ugu xidhmi lahaayeen deedna iimaankii camalka saalixa ay khasaa'inta ilahi ugaga faa'iidaysan lahaayeen